gabar la sheekaysanayay saxibtey meeshaan ugu imaaday yaa walaale gabadhii anagoo sheekada meel macaan oo macquul ay noo marayso داونيس ونوردين official بليز دان وفعل سبسكرايبك عاو waxaan nihaaya sheekada waa wiil Soomaaliyeed oo shukaansi amba haasaabo kala dhaxay gabar Soomaaliyeed oo muddo haasaabay mar alla markuu tagay gurigu waa guri iska qadiimi oo dhismihii hore mar alla markuu tagay calaashan dhismihii wuxuu yiri gabadhii biyo ii doontay mar alla markay ii doontay biyihii intay ugu maqneeday gurigu ku dun إنا لله وإنا إليه إنه مكان مركن يركض وابد الحمد لله سوى نوجا شيكي عاو marna kuma uusan fikiraynin in sidan ay wax u dhacayaan oo dhismahan duqa ah uu u dumayo haddana waa qadar alle daqiiqado ka hor ayuu halkan u yimid inuu kula haasaawo gacalisadiisa oo ay khadka taleefanka ka wada hadleen halkanna lagu ballamiyey iswareysi daqiiqado ka hor iyo wada joogista isaga iyo gacalisadiisa oo sheeka kaftameed dhanka nolosha dhex martay ayay doorbiday in ay biyo qabow u doonto lamaanaheeda si uusan u dareemin wax oon ah balse daqiiqadihii ay maqneed ayaa alla wuxuu qadaray in dhismaha duqa ah ee Botero ayaa soo dumay waxa uu ku habsaday dhowr qof oo ka hoos jiray dhismahaasi ka hor inta uusan burburin dadka deegaanka ayaa ka warhelay dhawaqa burburka dhismahaasi waxaa soo degdegay kooxaha badbaadada ee debdemiska kuwaasoo durba bilaabay in ay dhagxaantii soo burburay iyo dhismahaba ay qodaan waxaa lagu guulaystay in dhowr qofood halkaasi laga soo badbaadiyo oo dhaawacyo kala duwan ka muuqanayay wiilka jacaylka u yimid halkan waxa uu ka mid noqday dadka nasiibka alle uu u siiyey in laga soo badbaadiyo dhagxaantii burburka ee dhismaha duqa ah ee ku dul habsaday si gaara ayuu ula hadlay telefishinka dalsan isagoo qayb ka mid ah jirkiisa uu aasan yahay burburka dhagxaanta waxa uu u mahadceliyay alla subxaana wa tacaala iyo kooxaha badbaadada ee debdemiska oo dadaalkoodu uu halkaa ka muuqday gabar la sheekaysanayay saxibtey meeshaan ugu imaaday yaa walaale gabadhii anagoo sheekada meel macaan oo macquul ay noo marayso waxay dhahday biyo aan ku soo qaadayaa walaalkeeyo wax yar iisu ayadoo biyihii ku maqan sheekadana ka warhelnay saaxib hadda adiga qayba ka tuulta Soomaaliya waa li soo fogaya walaalay Soomaaliyeed bay soo fogayo emergency degdeg ah ee gurmadka Soomaaliyeed yaa debdemiska xilligan warna kama hayayo wacaaltoona gacalisadiisa balse waxa ugu wardambeysay iyadoo u doontay biyo qabow oo ay islahayd gacaliyahaaga ugu laab qabooji channelka daawanaysa waa Nuruddin please subscribe ku nugu caaw